ilaalinta qishka dawladaha dunida way ku kala duwan yihiin marka la yimaado ilaalinta imtixaanka waxayna u kala duwan yihiin hadba sida ay tabartoodu tahay wadamada tiknoolajiyad ahaan hormaray waxay keentay in ardayda tiknoolajiyadu adeegsadaan inay ku qishaan imtixaanka taa oo keentay in dawladuhu la yimaadaan kaarto looga hortagayo qishada imtixaanada waxaynu soo qaadan doonaa qaar ka mid ah dawladaha caalamka oo sameeyay waxyaabo la yaab leh si ay u xakameeyaan qishka imtixaanka dawladaha waxa ka mid ah dawladda India ardaydu waxay imtixaanka galaan iyagoo feer qaawan ku soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran haday tahay markii kugu horeysay soo boqoto nagu soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan dawladda Belgium oo ka mid ah dawladaha reer Yurub ayaa ardayda markay imtixaanka galay waxa dusha sare ka ilaalisa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa oo muuqaalay sawir ka qaadaya ardayda imtixaanka galaysa taasi oo yareysay dhaqdhaqaaqa ardayda imtixaanka oo fadhida diyaaradan yar ayaa awood u leh la socodka iyo ilaalinta ardayda muddada imtixaanku fadhiya dawladda India ayaa dunida kaga yaabsatay arrin cajiib ah waxay meel bannaan isugu keentaa dhammaan ardayda waxaana lagu qasbaa ardayda inay feer qaawani ku galaan imtixaanka loomana ogola shay aan ka ahayn qalinka waxaana waardiyay ciidamo militari ah waxaana kaga yaal ciqaab qishida imtixaanka waxaa lagu xukumayaa 10 sano xabsi ah qof walba lagu helo isagoo qishaya imtixaan arrintan ayaa hadal heeweyn ka dhaca abuurtay bulshooyinka caalamka waxaana la yaab noqotay sida adag ee dawladda India ula dhaqmaysa ardaydeeda dawladda Thailand waxay ardayda madaxa u suran kartoona si ayna dhinacyada u eegin muddada imtixaanka lagu guda jiro waxayna ardaydu ku qasban yihiin inay ku ekaadaan kaliya warqadooda oo aynan hawaysan haba yaraatee wax qish ah sidoo kale qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa ardayda madaxa loo suran kartoona xilliga imtixaanka si looga fogaado in ardaydu isku dayaan inay qishaan imtixaanka dawladda Shiinaha xilliga imtixaanka waxay ardaydu u baartaa si feejignaan ah waxaana la fatashaa qofka iyadoo lagu baarayo mishiinka baaritaanka ka hor intaysan gelin goobta imtixaanka lagu qaadayo kaliya waxaa loo ogol yahay inay la galaan qalinkooda mana jiro macallin ilaalinaya waayo waxaa ku xiran goobta imtixaanka kaamirooyinka waxduuba waxaana ardayda lagala socdaa shaashada waaweyn sidoo kale jaamacad ka mid ah jaamacadaha waddanka Shiinaha ayaa ardayda imtixaanka ku galaan barxadda weyn ee jaamacadda si aynan ardayda ugu sahlanaan qishka ardayda Japan ayaa imtixaanka ku qishi jiray iyagoo adeegsanaya taleefano iyo tiknoolajiyada casriga taasi waxay soo dedejisay inay dawladda soo iqtiraacdo aaladda lagu soconayo isticmaalka mobilka goobta lagu galayo imtixaanka waxayna ka gaareen guul weyn inay ka hortagaan qishka dhinaca tiknoolajiyada ee ardayda dalka Japan ayaa ka mid ah wadamada ugu horeeya dhanka tiknoolajiyada caalamka halka dhanka waxbarashada ay kaga jiraan safka hore dawladda Itoobiya waxay jartay internetka muddada uu socday imtixaanka ardayda dugsiyada sare waana arrin ay uga hortagayso qishka imtixaanka maadaama maanta waxa ugu badan ee u sahlaya ardayda qishka uu yahay internetka sidoo kale waxaa jira wadamada qaar oo macallimiintoodu la yimaadeen fikrado kale oo macallimiinta u sahlaya ilaalinta qishka imtixaanka sawirada qaar ayaa muujinaya macallin saara dusha albaabka qolka lagu galayo imtixaanka si uu si waafi ah ula socdo ardayda laakiin macallimiinta qaar ayaan san yeeli karin sababo jira ogood waan fahantaan filaya waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddaad ka hesho muuqaalkan like saar haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir kana mid noqo asxaabta